السلام عليكم soo dhawaada maanta insha Allah tacaala waxaan ka hadlaynaa ciwaan muhiim ah oo ah eukaryotic and prokaryotic cells. Okay, eukaryotic and prokaryotic cells. So waa maxay prokaryotic cells, waa maxay eukaryotic cells? haddii aad tahay arday dhigto dugsi sare form 1 form 2 form 3 form 4 ama jaamacadda semester 1 semester 2 waa ku muhiim inaad taqaanaa prokaryotic iyo eukaryotic because cells way kala duwan yihiin. cells kale eukaryotic iyo cells kale eukaryotic iyo waxyaabaha ay leeyihiin. So marka video insha Allah waxaan ku fiirinayna waxa waaye eukaryotic cells waxay leeyihiin ama maxaa waaye eukaryotic cells, sidoo kale waa maxay prokaryotic cells, yaana laga helaa, maxayna noo qabtaa. Okay, this is the ujeedaan waa eukaryotic cells ayaan halkan ku qori doonaa, halkan prokaryotic cells ayaan ku qori doonaa. Kow waxaan ku hormarayna definition. Waa maxay eukaryotic cells? What is the definition of eukaryotic? Eukaryotic waxa la yiraahdaa waa cells half nucleus, okay? True nucleus. Waxay leeyihiin nucleus sax ah ay leeyihiin eukaryotic, okay? Laakiin markii laga hadlayo prokaryotic waxa la yiraahdaa no true nucleus. Okay, ma lahan macnaha nucleus sax ah, ma lahan prokaryotic. So macnaheedu waxa waaye eukaryotic cells waxay leeyihiin nucleus halka prokaryotic aysan leeyahin wax nucleus ah. Okay, sawir ayaan u tagi doonaa insha Allah. Hadhow waxaan idin tusi doonaa sawir oo ah difference-ga prokaryotic cells-ka qaabka u yaalaan iyo eukaryotic insha Allah. yaa laga helaa marka eukaryotic cells-ka yaa laga helaa inta badan, prokaryotic-na yaa laga helaa. Eukaryotic inta badan waxaa laga helaa animals-ka, plants-ka iyo fungi-ga. inta badan ayaa laga helaa eukaryotic. laakiin prokaryotic inta badan waxaa laga helaa bacteria. inta badan ayaa laga helaa bacteria. So macnaheedu waxa waa prokaryotic cells-ka waxaa caan ku ah bacteria. Okay, halaas waa fahanay marka. Size-ka nucleus-ka waa sheegnay eukaryotic waxay leeyihiin nucleus, laakiin prokaryotic wax nucleus ma laha. Cell size-ka ka waran, size-ka yaa weyn, eukaryotic cells-ka ma weyn mise prokaryotic cells-ka? Waxa weyn eukaryotic cells-ka. Okay, larger size-kooda weyn yahay halka prokaryotic size-koodan uu yar yahay. Loo qiyaasaa 1 ilaa 5 micrometer. Okay, chromosome-ka ka waran. haddii la is barbar dhigo chromosome-kooda eukaryotic cells-ka labadaba chromosome way leeyihiin, laakiin inta badan midkan chromosome-kiisa waa double helix halka kan uu yahay maxaa la yiraahdaa single. Okay, organelles-ka markii laga hadlayo waxaa la yiraahdaa organelles-ka waxaa la yiraahdaa waxyaabaha laga helo cytoplasma la yiraahdaa organelles. Okay, waxaa kamid ah marka organelles-ka waxaa kamid ah kow endoplasmic reticulum, mitochondria waxaa kamid ah waxa la yiraahdo Golgi apparatus ama Golgi complex. saddexdan inta badan waxaa laga helaa eukaryotic cells-ka, lagama helo prokaryotic. No organelles. Prokaryotic cells markii la joogo ma lahan endoplasmic reticulum, ma lahan mitochondria, ma lahan maxay Golgi apparatus, laakiin eukaryotic way leeyihiin. So hadalkan muhiim ah marka insha Allah. Okay, cell wall labadaba way leeyihiin. Okay, cell wall eukaryotic cells waxay leeyihiin cell wall halka ay leeyihiin maxaa la yiraahdaa bacteria-da ama prokaryotic cell wall ay leeyihiin ayaga. laakiin cell wall-ka kan uu ka samaysan yahay iyo cell wall kan uu ka samaysan way kala duwan yihiin. Okay, qaabkay ku samaysan yihiin kala duwan. Cell membrane labadaba way leeyihiin. Cell membrane way leeyihiin. Okay, cell membrane wuu leeyahay, cell membrane ninkan wuu leeyahay isagana. Cytoplasm labadaba way leeyihiin. Cytoplasm labadaba way leeyihiin. Cytoplasm reproduction si u tarmaan in markii la joogo eukaryotic waxay u tarmaan qaab la yiraahdo saan qaano mitosis iyo meiosis. laakiin inta badan bacteria-du waxay ku tarantaa ama prokaryotic
waxa la yiraahdo binary fusion. Binary fusion oo ah hab qarax oo kale ay u tarmaan. Okay, ribosome-ka marka la fiirinayo, ribosome-ka waxa la yiraahdaa eukaryotiga aad ayuu u weyn yahay oo 80s ayuu gaaraa, waa larger. Ribosome-kooda markii la fiiriyo wuu ka weyn yahay prokaryotiga oo ah smaller. So aan fiirina marka hadalkan muhiim waa definition eukaryotic cells waxa dhaanay waa cells leh nucleus la yaqaano oo run ah. Okay, laakiin prokaryotic waxa dhaanay ma lahan true nucleus, ma lahan nucleus oo la yaqaano meel ku yaal ma lahan. waxaan dhaanay size-ka markii laga hadlayo eukaryotic ayaa ka weyn prokaryotic. Okay, markii la isla barbardhigo ya inta laga helaa eukaryotic waxa dhaanay eukaryotic waxa laga helaa animalska, plantska iyo fungi ayaa laga helaa, halka prokaryotic laga helo bacteria. Okay, sidoo kale waxaan dhaanay chromosome markii laga hadlayo chromosome waxaan dhaanay waa double helix markii la joogo eukaryotic halkan uu yahay single. waxaan dhaanay sidoo kale organelles ayaa laga helaa in eukaryotic laakiin lagama helo waxa la yiraahdaa prokaryotic. Organelles maxaa kamid ah endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex. Okay, waxaan dhaanay labadaba cell wall ay leeyihiin, labadaba cell wall ay leeyihiin, labadaba cell membrane ay leeyihiin, labadaba cytoplasm ay leeyihiin. qaabka u tarmaan kan wuxuu maraa reproduction la yiraahdo mitosis, meiosis, kaas wuxuu maraa qaab la yiraahdo binary fission. Ribosome waxa dhaanay waxa weyn eukaryotic markii la barbardhigo prokaryotic. So u maana marka sawirka inta u maana marka sa u jeedaan sawirkan waa noo muhiim marka. Okay, sawirkan waa noo muhiim. This is was cell membrane, cell membrane. waa kan waa eukaryotic. Okay, waa cellkan waa eukaryotic halka kan uu yahay prokaryotic. So wuxuu leeyahay cell membrane, wuxuu leeyahay mitochondria, wuxuu leeyahay lysosomes, wuxuu leeyahay Golgi complex, wuxuu leeyahay sidoo kale nucleus. nucleus ayuu leeyahay iyo sidoo kale endoplasmic reticulum. mujidi eukaryotic cells waxaan dhaanay waxay leeyihiin intaan soo sheegnay, laakiin prokaryotic uu imaa marka. prokaryotic maxay leeyihiin? Ko waxay leeyihiin cell membrane, waxay leeyihiin cell wall. marka idin dhahayo cell wall uu leeyahay eukaryotic macnihiis ma ahan bini'aadanka cell wall ma lahan. Okay, anaga ma leeyihiin cell wall, laakiin waxaa leh plantska, fungi waxaasna waxay leeyihiin cell wall ay leeyihiin. So taas ogaa marka. Okay, kan waxa ka wada waa soo qaadan. Okay, waa example. Okay, this is waa ribosomes. Okay, this is waa ribosomes. sidoo kale midkan way leeyihiin ribosomes. Okay, ribosomes ay leeyihiin ayaga. sidoo kale waxay leeyihiin nucleoid ay leeyihiin bedelkii oo ayaga nucleus ay lahayn waxay leeyihiin wax la yiraahdo nucleoid. Okay, sidoo kale this is cytoplasm. So marka nucleoid kan ayaa waxa u keedaysa marka DNA-da. So in bacteria markii la joogo waxay leeyihiin nucleoid kan ayaa waxa u keediyaa marka genetic material-ka ayuu u keediyaa. Okay, sidoo kale waxay leeyihiin wax la yiraahdo plasmid. Okay, oo bacteria waxyaabo badan ka caawiyo. So this is difference marka. difference maxaa marka bacteria ma lahan nucleus kan, waxaan ka wadnaa prokaryotic kan ma lahan nucleus kan, ma lahan Golgi apparatus kan, ma lahan mitochondria, ma lahan lysosomes kan, ma lahan maxaa la yiraahdaa endoplasmic reticulum kan. sa u jeedaan waa ka arki kartaa Golgi apparatus meesha uga jeedid, endoplasmic reticulum meesha uga jeedid, mitochondria uga jeedid, waxyaabihii aad soo sheegay uga jeedid. So marka waa ku muhiim marka inaad taqaanaa difference between eukaryotic cells and prokaryotic cells. So prokaryotic yaa laga helaa inta ugu badan bacteria, sax. So marka waa muhiim marka halaas inaad taqaanaa. So marka insha Allah videogeena halaas ku soo gabinayna. Mowduuca ugu weyn wuxuu ahaa inaad kala saari kartid prokaryotic cells and eukaryotic cells. So in picture ahaan waa in tusay kulli waa kala saari kartaa, in qoraal ahaan waxaan rajeynaa ayadan inaad kala saari kartid. So thank you so much. Next video
bye bye.